musharax burka kun saaxiib waa yeelan kartaa laakiin guur haddii noqoto hal naag lay guursan kartaa hal naag ka badan haddaa guursatid ee naagahaas istiriraan waa lagu xirayo dayaxdal nuurshe gabadha dunida inta ilaahay soo istaajiyay ugu doqonso waxa ma taqaanaa waa gabadhi guur ka ogolaato ninkii 4 ciyaala iyo xaaskiisii oo dhib badan la soo martay ninkii ka soo tago ee dhaho waa ku jecelahay ama nolol baan kula wadaaga ama adaan ku ilaali doonaa ninkii dhaho ee been gabadhi beentaas inta loo sheego ee caqligeeda inta geliso maxaa lahay ii sheeg ninkaasi dabaka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada halna guursada ku ekaada dhaqda gabar masayrta oo la masayrta gabar lala guursado arkay laakiin nin masayray oo gabar lala guursaday la masayray hadda ka hor ma arag markii wiilkan hanti yeesho ama noloshii kor ugu kacdo ama noloshii dibta ahayd ee rafaadka ee shalay ku jiray iskala soo baxan gabadha la soo qaybsatay buu wuxuu ku leeyahay hadda marka xaaladda la joogo waxaan ka bixi karaa in laba xas guursado toddobaadkan geyga Soomaaliyeed waxa aad looga hadlayay oo baraha bulshada qabsaday nin fanaana oo caan dhalay oo Xariir Axmed la dhaho oo xaaskii labaad roosay caanimada marka oo kala nacaa yaa haddii ninka aan la aqoon cid kuma habsaateen laakiin marka lagu yaqaano xagee istaagay xagee taagna lacagteedii dhar baa qaba maalin kasta saan funaanad sharac suuq gadanay waxaan dhahaa warkaayaan la oro warkaa shaluusitay ee maanta mid cusub qaado been idin sheegi maayo caanimada horta dhibtaas leedahay ninkaasi haddee waxaa jira dad Soomaaliyeed oo 4 hadda qaba rag Soomaaliyeed oo 4 qaba jira laga yaabo 4 kale inay soo fureen laba cali isweydiin mayso magaalada ay degan yihiin lagama oga laakiin marka caan tahay wallahi billahi hada dadka caawala inuu ku qaadayo oo ku tala galaysa Xariir Axmed waa guursaday xaajiyada baad buu guursaday anina saaxiibkay waaye nina maartay ehel iyo tol iyo Soomaali wixdadii hayba aan hay waaye waa wacay sigaara waa u hambaliyay halkana waa u hambaliyay waxaan leeyahay waradiyo xaajiyaduba adiga iyo xaaskii hore iyo tan cusub ba ilaahay ha isu keen barakeeyo dadka ku wada dadku ma shariira shirtooda ilaahay ha ku mootiyo oo maartay dhinac kaamariyo ninka arooskiisa dad badan baa ka hadlay qof meel buu la aaday laba qof baa sidee uga hadleen aniga isoo jiidatay warba halka ina ku qaada dhigo nin waa nin halka ka salaamayo oo musharax madaxweyne ah musharax burka la dhaho ninkaasi shal ka hadlay arinta in kasta oo uu sanday magac dhabin laakiin waa si dadban buu uga hadlay wuxuu yiri ma fiicna ninku inuu xaas ka badan guursado aniguna hal xaas baan qabay waa kala tagnay mid kale aan guursaday waa kala tagnay haddana saaxiib baa leeyahay saaxiibkaasi war xiriir baa leeyahay buu iska dhaho yaa arintu saas ku macaaneeyay ilaahay masuulisiin ninkaasi waa musharax madaxweyne waaye ninka kale waxa waaye dayax danuurshe dayax garanaysaa dayax miyuu maqli karaa nin xaasle baa gabar kale eegay isagu waa ninkaasi degeel xoolo kuma jiro waa aragil arki jiray way isagu waa salaamaya ninka gabadh heshay nin baa heshay ilaahayna waxa ka bariyaa ragga Soomaaliyeed dumarku sida inay u wada noqdaan buu jecel yahay ilaahay ha uga dhigo baa leeyahay hadaa ugu raacsantiin aanu waa soo qori kartaan hadii kalena waa ka boodi kartaan arintaas aan rabaa inaan ka hadlo hadii aad janaalka YouTube ku cusub tahay subscribe saar Facebook page-kayga follow soo dhe like to comment-ga soo badi video-gana si share garay musharax burka shalay wareysi uu bixiyay hadaladiisi wax kamid ahaa Mareykanka lagama ogolo in halna ka badan la guursado marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada halna guursada ku ekaada Soomaaliyeed horta ninkan nin daacad waaye waa nin aad u laxaarin qurbuhu ka yimi dad badan oo idin kamid ah hadda waxa laga yaabaa inaan ninka la yaabantiin laakiin waxa idin sheegayaa dalkeena dadka xilalka ka haya madaxda xilalka haysa ama wasiiraha ahaato heer kasta ahaato 90% qurbaha ka yimaadaan qurbaha dadka ku nool oo dhan badidooda iyagoo dhan ma oran kareen waa wada wareersan yihiin wareerka ku kala badnaado ninkaas isagu wuxuu kuwa badan oo hadda xilal idin haya uga fiican yahay inuu daacad yahay
inuu laabtiisa wixii ku jira ka hadlayo inuusan u muuqanin soo shaqo tagay inuu yahay oo baahi gaar qaba oo hadda lacag qiimo gaar ah u sameynaysa inuu yahay nin jeclaystay dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax u qabto anigu ninka waxaan u malaynayaa musharaxnimadiina isaga uga tanaasuli doono ninkaasi waxa uu sheegay horta dhulkii uu ka yimi guurka inaan laga ogolayn ninku inuu guursado hal xaas ka badan wuxuu yiri waligay iskuma dayin ma rabo inaan guursado sababtoo ah wuxuu yiri xaasaskaasi hadday diriraan oo boolis meesha soo galo waaba soo galayaaba dambigaada lagu saarayaa marka wuxuu ku leeyahay kabtooda iyo karintooda waxa iiga daran kala celintooda maxaa rabshada ay gelinaya marka ragga Soomaaliyeed wuxuu kula talinayaa oo uu leeyahay war Mareykan ba ya saasa looga dhaqmaa halkana saa uga dhaqma inta isagu kuma ekaan wuxuu leeyahay diida xaas la'aan noqotoba waxa weeye inta mid iyo laba iyo saddex iyo wax doon lahayd war sideeda saaxiib samayso anu saaxiib baan leeyahay buu leeyahay bal waa kan ila eega waa kala tagnaa ayadana hadeertaan saaxiib aan leeyahay nin Maxamed Deyo la dhaho dadku waa kala hawl badan yihiin saaxiibanahay caan leeyahay wuxuu yiri wariyaha hadaan aan lahaa waxa weeye musharaxa su'aal baa weydiin lahaa su'aashaas wuxuu aan lahayd saaxiibtinimada cadaanka waa la isku dab saaraay adigu qofta hadda wada joogtaan oo xiriirka leedihiin ma isdab saarteen dab bariis la karinayo miya niyo Deyo hawl badana ya digir dab la saarayo miya dabku muxuu yahay ma la isku bayaa macnaa gasir ma la iska gubaa bal aniga iisoo jilcaanu dabka aan sheegayso Deyo wallahi waa fahmi lahayn dabka waa ku wareeray aniga marka insha Allah ta'ala mardamo wareysi laga qaadayo musharax burka waa la weydiin doonaa adiga saaxiibada ma isdab saarteen hada isdab saarteen se ma ku gubateen dabka ya waa la weydiin karaa su'aasha Deyo waa codsaday in la weydiiyo musharax burka anigu halka waxaan u fahmay inuu ka wado gabadha xiriir baan leenahay xiriir baan leeyahay xiriirkana de qof kasta xiriirkaasi waa leeyahay laakiin odayga halkaas la martay hal loo cudur daaro ninkaasi arooska Xariir Axmed si dadban buu uga hadlay waana cadeeyay mana fiicna buu yiri hal xaas ka badan in la guurso warkiisu cad yahay Mareykan buu dhaqanka kala yimi waa maqlaysan musharaxaas anu burka ku aaminsanahay ninka labaad waxa weeye Dayaxdal Nurshe waa nin xaasa waa nin sharaf iyo karaamo leh waa nin magac Ilaahay siiyay waxaan la soconaa inuu xaas jajaban yahay macnaa nin oo xaaskiisa u jajaban oo u fiican jajaban waa fiican ninkaas bacdama fanaan la mid uu guursaday fanaanintii oo dhan waa u soo hambaliyeen isaga hambaliyada baa laga waayay waxa la isku dayay in la xiriiro oo la dhaho Dayaxow soo hambaliyay xariirna aad isku fiican Dayaxarinta waa ka gaabsaday waa ka cudur daartay wuxuuna sheegay sidaan xogta ku hayo inay ahayd Xariir xaaskiisa hore inuu la joogo oo ku ekaado oo uusan dhinacna u dhaafin sidiisa oo kale warkiisu ninka waa cadaaday marka hambaliyada Xariir halkaas ku waayay Xariir oo hambaliyooyinka kala ka badan tii sheeno culay baa ka badan tii ragga Soomaaliyeed badidoodu ay soo direen baa ka badan taa iimaanso Dayaxdal Nurshe hambaliye ka sugaysay kuma soo wado waana ka xanaaqsay runtii xaaska labada aroostay ninkaas inuu ka xumaaday warkiisa waa cadeeyay haddana wax cusub maaha Dayaxdal Nurshe hadda koormaru ka hadlayay ragga guursada waxa uu sheegay adduunka waxa ugu doqosan gabadha yeesha guur ka yeesha nin xaas hore lahaa oo xaas qabay oo xaaskiisi intuu ka soo tago oranaya adaan ku guursanaya Dayaxdal Nurshe oo arinta ka hadlaya waxa hadaladiisi kamid ahaa gabadha dunida inta Ilaahay soo istaajiyay ugu doqonso waxa mataqaanaa waa gabadhi guur ka ogolaato ninkii afar ciyaala iyo xaaskiisi oo dib badan la soo martay ninkii ka soo tago ee dhaho waa ku jecelahay ama nolol baan kula wadaaga ama adaan ku ilaali doonaa ninkii dhaho ee been gabadhi beentaas inta loo sheego ee aqligeeda inta geliso maxaan lahay ii sheeg ninkaasi dabaka gabar masayrta oo la masayrta gabar lala guursado arkay laakiin nin masayray oo gabar lala guursaday la masayray hadda ka hor ma arag waa ninkii sheeno culayha oo inta ka badan aan doonayn inuu hawlaha ku sii socdo oo idin leh khayr baa inoo balana